marka adduunka dusheediina waxay ahaayeen addoommo ilaahay laakiin maalinteeba waa u taraysaa addoonnimadaasi dad badan maanta waxay arkayaan salaada iyo soonka iyo sadaqada iyo zakada iyo taacadda ilaahay qofku uu gudanayo manfacadeeda adduunka qofku ku arki maayo in badan laakiin maalinta la qatan yahay la qaawan yahay waa yowma alqiyaamah maalinta khalqigoo dhan ilaahay ay u sara joogsan doonaan yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin ilaahay qur-aanka meelo badan buu kaga warramay maalinkaasi dhibaatada uu leeyahay cadcaadda halkaa inaga gubaysaa bini aadamka madaxooga la duldhigi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam markaasaa qofka dhididka jidhkiisa ka baxay ayaa dhulka intuu galo 70 diraac dib haddana usoo bixi doona buu nebigu yihi markaasaa qof walba halkii dembigiisu ahaa buu imanayaa dhididkiisu maalinka la qatan yahay la qaawan yahay ee qofku cid u gurmata uu u baahan yahay ma aha 2 cisho iyo 3 maalmood oo maalmahan adduunka hamoodin wa fii yowmin kaana miqdaaruhu 50,000 sana الحمد لله ولا ليال إلهي أنا وحمدنا ما ركتاني دين إسلام كي نقول دقي نقول نعمي صلاة الصبح جماعة كسو قيب قال لي صلاة هذا قيمة بدن ويان والله وضع صلاة ذا النبي يقول شيء إن دوشنا ملائكته أسكو بدليس ملائكته هبينكي يا ملائكته الأرتي كوي حليته لأن لبريي saakay noqonayaan ilaahay xaqiisa u noqonayaan dadna markay noqdaan ayuu ilaahay weydiinayaa uu leeyahay adoomahayga saad kaga timaadeen xaaladda mar walba adoomuhu ay ku sugan yihiin ilaahay waa og yahay laakiin waa tashriif uu sharfinayo dadka salaadaha sida gaarka u ilaaliyay salaat al-casr iyo salaat al-fajr markaasoo malaa'igtu odhanayaan iyagoo tukanayana waan u tagnay iyagoo tukanayana waan ka imanay bay leeyihiin ilaahay ha inagu daro liiskaas maalin walba qaa'imadaas ilaahay baa la horgeynayaa dadka khaasatan salaada casar iyo salaada subax ku dadaalay ee ilaaliyey waagii baryo iyo maaragtaane gabalkii dhacaba casar markii laga noqdana malaa'igtii maanta inala ooshay baa noqonaysa isla sidaas oo kale markay ilaahay xaqiisa u noqdaan ayuu ilaahay odhanayaa adoomahayga seed kaga timaadeen oo khalqiga kale adduunyada ku nool maysan adoomihiisii ahayn bal waa adoomihiisii laakiin kuwani ilaahay si khaas ayuu ilaahay u magac dhabo wuxuu leeyahay kayfa taraktum cibaadii seed adoomahayga kaga timaadeen lianna xilliga ay hurdadu macaan tahay ayaa qofka muuminka ee ilaahay salaada subax iyo salaada casar ilaahay u ilaaliyay raaxadiisii iyo xaajaadkiisii buu ka imanayaa waa salaada uu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam habeenkii midkiin markuu seexdo qadaadkiisa hadama shaydaanku 3 guntin buu ku guntaa mid walba wuxuu ku dul akhriyaa uu ku yiraahdaa habeenku uu dheer yahay waa wali iska seexo hadduu qofka muuminku habeenkii uu kaco uu ilaahay xasuusto buu nabigu yiri mid baa furmaysa haddii uu weysaystana tii labaad baa furmaysa hadduu tukadana tii saddexaad baa furmaysa fa asbaxa nashiidan tayiban nafsi buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam qofkaas wuxuu waa bariisanayaa isagoo naftiisu ay aad nashiid iyo nashaado uu dareemayo naf furfuran iyo qalbi furfuran iyo waji furan buu la waa bariisanayaa salaada subax qofka masaajidka jamaca soo xaadirana diin iyo adduunyo markuu waxa uu ka laho maalinkaas ilaahay barako noloshiisa u gelinayaa arsaaqadiisa barakuu gelin cimrigiisa barakuu gelin caafimaadkiisa barakuu gelin awlaadiisa barakuu gelin xataa tacliim maadiya iyo diiniya hadduu u kalaho xilligaas waxa uu u dhaqaaqay oo dhan ilaahay barakuu gelinayaa laanna waaga berigiisii wuxuu ku waabariistay inuu ilaahay caza wajalla uu jabhadda jidhkeenna ugu qiimo badan waa meesha qofka marka dhagaxa lagu waabiyo uu labada gacmood u dhigo weeyaan labada gacmooduu sidan leeyahay isaga muuna lahayn bal isaga uunbaa leh laakiin jirka waa la yidhi meesha ugu qiimo badan bay yidhaha culimmadu waa halkaa jabhada waa meesha ilaahay uu doortay in isaga dhulka loo dhigo oo meesha maxaa ku yaala daakirada qofka bini aadamka daakiradiisa xasuusta halkaa bay ku taallaa baa la yidhi oo qofku hadduu yaraan ku barbaaro ilaahay taacadiisa weligii iyo allihii qofkaasi intuu doonay ha gaadho cimrigiisuye maskaxdiisu isku darsami mayso laanna yaraantiisii buu bilaabay inuu u dhigo maaragtaane meesha ugu qiimo badan jirhkiisa
allihii abuuray inuu wejiga dhulka u dhiga ayuu go-aansaday. marka adduunka dusheediina waxay ahaayeen addoommo ilaahay, laakiin maalinteeba waa u taraysaa addoonnimadaasi. dad badan maanta waxay arkayaan salaada iyo soonka iyo sadaqada iyo zakada iyo taacadda ilaahay qofku uu gudanayo, manfacadeeda adduunkan qofku ku arki maayo in badan, laakiin maalinta la qatan yahay la qaawan yahay waa yowma alqiyaama, maalinta khalqigoo dhan ilaahay ay u sara joogsan doonaan. yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh yowma yanduru lmaru maa qadamat yadaah yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a yowma laa yanfacu maalun walaa banuun yowma dalika yowmu taqaabun yowma aljamci laa rayba fiihi. ilaahay qur-aanka meelo badan buu kaga waramay maalinkaas dhibaatada uu leeyahay. cadcaadda halkaa inaga gubaysaa bini aadanka madaxooga la duldhigi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. markaasaa qofka dhididka jidhkiisa ka baxay ayaa dhulka intuu galo 70 diraac dib haddana usoo bixi doona buu nebigu yihi. markaasaa qof walba halkii dembigiisu ahaa buu imanayaa dhididkiisu. qaar buu kuraamaha imanayaa, qaar buu jilbaha imanayaa, qaar buu guntiqabadka imanayaa, qaar buu garbaha imanayaa, qaar buu halka qowlaladu dhididkoogu imanayaa. maalinka la qatan yahay la qaawan yahay ee qofku cid u gurmata uu u baahan yahay ma aha 2 cisho iyo 3 maalmood oo maalmahan adduunka hamoodin. wa fii yowmin kaana miqdaaruhu 50,000 sana. maalinkaasi laa hooyaa wax kuu tari, walaa aabbaa wax kuu tari, walaa dhaqaalo qofku lahaabaa wax u taraya, walaa qabiilbaa wax u taraya, walaa aqoontii uu lahaabaa wax u taraysa. may waa maalinta ilaahay tabaaraka wa tacaala la wada hoos joogee la baryaayo, ee xataa jamiica alambiya calayhim assalaam nebi walba intuu jilibka u dhaco uu odhan doono yaa rabbi laa as'aluka ilaa nafsii. maanta naftayda mooyaane anu cid kale u hadli maayo, ilaahu aniga i badbaadi buu nebi walba uu leeyahay. aadam baa le calayhi salaam yaa rabbi nafsi, naftayda ilaahu maanta ii badbaadi. ibraahim alkhaliil calayhi salaam baa odhan doona khullada ilaahu khaliilka aan adiga dhigatay ayaan ergo ka dhiganayaa, ilaahu maanta khaliilnimadaada igu badbaadi buu leeyahay. maalinkaasa ilaahay xaggiisa waxaa ka iman doona ogeysiis iyo iclaan. oo waa maxay iclaankaas? yaa cibaadii laa khawfun calaykum alyowma walaa antum taxzanuun aladiina aamanuu biaayaatina wa kaanuu muslimiin udkhuluu ljannata antum waaswaajukum tuxbaruun yutaafu calayhim bisaxaafin min dahabin waakwaabin wafiiha maa tashtahiihi alanfus wataladu lacyunu waantum fiiha khaaliduun watilka aljannatu alatii uuristumuuha bima kuntum tacmaluun. yaa cibaadii ilaahay baa odhan doona addoommahaygiyow ininka maanta dushiina murug iyo cabsi midna dushiina ma saarna baa la odhan doonaa. kuwa sidaa lagu odhanayana waa kuwii adduunka intay joogeen aayaadka ilaahay bay rumaysnaayeen. aayaadka ilaahay bay rumaysnaayeen. aayaadka maxaa loo jeedaa markaas? aayaadka ilaahay waxa weyaan waa jannada, waa naarta, waa bacthiga, waa qabriga, waa nolosha dambe ee dhabta, waa malaa'igta, waa xayaat albarzakh. aayaadka ilaahay, aayaadkan kowniga adduunka aan arkaynana ilaahay baa maamula, cid kale ma maamusho. habeenka ilaahay baa keenay. ilaahay uu karaa adduunka dhanba inuu hal habeen ka dhigo, ayaa keeni kara maalin hadduu ilaahay adduunka habeen ka dhigo. haddii uu maalin ka dhigana ayaa habeenkan aad ku nasanaysa kuu keeni kara. wa min raxmatihi jacala lakum alleyla waannahaara litaskunuu fiihi walitabtaquu min fadlihi walacalakum tashkuruun baa ilaahay. wa min raxmatihi waa naxariista rabbigiin weeyaan ayay ka ahaatay inay maalintuna inii timaado iftiin la timaado, oo maalinka cadceeddu intay soo baxdo aada arsaaqada xalaasha aada u fooftaan, habeenkiina uu la yimaado mugdi, deedna habeenkiina aada seexataan ood nasataan baa ilaahay yidhi. walacalakum tashkuruun. aayaadkaa markaad aragtaanna wuxuu ilaahay leeyahay waxaad markaa mudan tihiin inaad rabbigiina ugu mahadnaqdaan. war bini aadan yaroo daciif oo miskiina adigoo guriga ijaarkii lagugu leeyaho kaa cas tahay oo meelaad wax ka soo qaadana la, ninka maalin yar maaragtaan culayskaa ku haystay kaa fudaydiyey ee kirada kaa sii dhiibay ayaad weligaa hadal haynood leedahay ninkaasi waa nin deeqsiya, waa nin dadnimo yaqaana, waa nin naxariis badan, waa nin diin fiican baad odhan. famaa baaluka ilaahay ku abuuray maxaad u malaynaysaa? caafimaadkaad saaka la soo kacdayna kugu deeqay, aragaad ku arkaysa ku siiyey, hurdadaad xalay seexatay ilaaha kugu deeqay. bal meel hurdada lagu iibiyey adduunka sheega waa kaasi. gaaladan maanta ina wareerisay cadaan iyo madowgooga eele wax walba waan hallay, wax walba waan samaynay, hurdo may samayn karaan? caafimaad may ku siin karaan? kuma siin karaan. hal habeen qofku hadduu seexan waayo u walan,
hal habeen maantoo dhan buu ka sheekayn xalay ma seexan war waad seexan doontaa bal aamus malaha buun baad cabtay qaxwo badan baad cabtay baa la odhan haddana maalinimadiiba haddana hurdadii hadduu iska waayo waxaa laga yaabaa habeenka dambe hadduu seexan waayo qofka maskaxdiisu halis bay ku jirtaa qofkaasi hurdaduna waa min nicam illaahi caza wajal alxamdu lilaahi aladii axyaanii bacda maa amaatanii wailayhi الnushuur nabigeenu sal اlla alay slam markuu jiefka ka soo kaco ducadaasuu akhrisan jiray alxamdu lilaahi aladii axyaanii ilaaha waxaan ku mahadaya aniga isoo nooleeyey intuu idilay kadib waayo dhimashada iyo geeridu cilaaqa ka dhaxayso waa walaalo buu nebigu yihi ahlaljannuhu jannada hadday galaanna ma seexan doonaan axyaana bacda maa amaatana xalay waan hurudnay waad dhinsanay waxa dushaada ka dhacaya kama warqabin imse meeloodna way ku dalooshay halkanaa ku dalooshay iyaa ku ilaalinayay xafada malaa-ig baa lagu soo dirayaayo xasharaadkao dhan kaa ilaalinaysa habeenkii marka aayaadkay rumaysnaayeen aayaadka ilaahay wa kaanuu muslimiin dad adduunka dusheeda intii la joogana annaga noo hogaansan bay ahaayeen buu ilaahay yidhi 60 sano 70 sano qofku hadduu ilaahay daacadiisa u sabro waxa uu helayaa raaxa abadiya buu helayaa raaxa abadiya sarmadiya 70 sano 60 sano 70 sano aakhira marka la joogo intay tahay ma taqaanaa wa ama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalibu ilaa ahlihi masruura ibnu cabaas radia allahu canhu mufasirkii qur-aanka wuxuu yihi muuminku kitaabkiisa gacanta midig markuu ka qaato waa ka ilaahay yihi xisaab yaroo fudud baa la xisaabi doonaa deedna ehelkiisa xaggiisa u gadoomi buu ilaahay yidhi ehelkaaga kuwan adduunka kula jooga hamoodi runtii maaha kuwan ehelkii runta ah awlaadan adduunka aad ku haysato waa ikhtibaar baa lagu siiyey xaaskaaga waa lagugu ikhtibaarayaa nolosha adduunka waa lagugu ikhtibaarayaa ehelkaaga dhabtu baa layihi qofka muuminka ehelkiisu kitaabkiisa markuu gacanta midig ka qaato oo xagga jannada ugu dhaqaaqo irida jannada ay u taagan yihiin buu yihi ibnu cabaas markaasuu sidaa u eegaya xawraadiisii xawraantiiba ka hortimida ma ogtahay daymashada oo keliya ayaa ka qaadan doonta 70 sannadood kuwa adduunka 10 daqiiqa ma eegi karta islaantaada haddaad tirahda nabad qurux badan tahay caawa ku daawada balsaa u joogso war hay cawriin bay ku odhan balaaga kugu dhacdee 70 sano noloshii adduunka soo maha waxaad kusoo dhamaysatay soo maha 70 sanaad adduunyada joogtay waxay u dhigantaa hal xural cayn oo wejigeyga oo daawanaysa u dhigantaa yucaaniquhu wa yucaaniquha walmucaanaqatu qadru 40 sana buri ibn cabaas 70 sano uu daawanayey 40 sanana saas u haysan baa la yidhi waa imisa 110 sano maxaad soo jirtay adduunka markaa ehelkeenu way naga dambeeyaan وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا محل إنه كان في أهله مسرورا أهلك أدويدنا ولا شيء الله سبحانه قارنا كتابك وقع حاجة قداشة دم الله قصو سين دونا با إلهي قال العلوش هل كان أنت قدح بعضه قعنت أي كتاب حاجة دم كان قادان يا قعنت بدحولي بنا وعلامة الشقاوة إنه خساري وامتحانك كل عيب عدين يسا إلى جهنم والعياذ بالله وما حكى صدا كتاب حق دم لوga siiyay waxa looga siiyay adduunyada intuu joogay buu ehelkiisa dhexdooda ku farxsanaa bas iska ciyaarayay iska tumanayay iyo ku ka shaqeynayay iyo ka noloshooda ka fikirayay aakhira iyo warkeeda baabka kuma bajarinba ciyaalkan dhoofinayna ciyaalkan u shaqeynayna ciyaalkan u fikiraya mustaqbalkoogan dhisaya meel tacliin la raadsanaya dhulkan dhakhtarna male dhulkaaba dhakhtarale amniga afrika la iskuma hadlayn karo waan qaadaya waan sii wada uu soo wada uu sii wada noloshiisii oo dhan wuxuu ku dhamaystay kuwaas sidoo kale dhinac ugu wadwaday diinna ma barin xataa yaa rayt hadduu ilaahay bari lahaayo nebigooga bari lahaa sal alla alay wasalam oo qur-aanka bari lahaayo dhaqanka wanaagsan bari lahaa lakaana axsan fiicnayda inbaa beri jamaacaddu ay ku yidhahdeen alaa yar fadhiiso masaajidka xalaqada dhegeyso wuxuu yihi bilaa meherad ma ihi buhi anigu sidiina bilaa meherad ma ihi buu yihi mashquul baan ahay ciyaalkeygana waan tarbiyadeeyaa raalli baad iga ahaanaysaan haye waan kaa nahay raalli
jaamacadka dacwadana waxaa lagu yaqaanaa sabirka moogta qaalib u ah iska sabra 3 sano kadib bay haddana la hadleen wuxuu warnay waa soo dhadhowahay imika buu waa soo dhadhowahayo caruurtii baan dibadda jaamacadahan u wada dirayaayo markaan iyaga iska diro markaasaan jaamacadka aan miskiidkan la fadhiisan buu yiri oo diray haye imika ciyaalkii ma dirtay ha waan diree laakiin waqti aan la fadhiistay nima hayo iyakan habeenkiina khadka ayaan kala hadlayo ka waaniyaa buu yiri oo iyakan saacado badan ku bixiyaa buu yiri iyakoo dibadaha ay kala jooga 5 sano ninka jaamacadii kala maqnaayay ninkii cawlan oo madoobaaday oo fool xumaaday ayay maalin miskiidka ku arkeen bal noo waran wuxuu waxba igu dhacay buu maxaa kugu dhacay saddexdii ciyaal dibadaha u kala daray ha midna uu waashay buu haye midna maskaxdiisii oo isku darsantay sidoo daroob u isticmaalayay ilaa inuu wax baranaya inuu haystay mukhadaraad sidoo u isticmaalayay isagoo nooc kala ayaa la keenay oo dhaqan celin oo meel hargeysa la yiraahdo baan ku xiriyay buu cilaaj kii kalena rajama bala khamr buu cabaaba la yiri buu ha ciyaalku mustaqbalkooda dhisay markaa mustaqbalka ubadka diinta lagu dhisaa ilaahay baa la baraa oo nabigooda la baraa sallallahu alayhi wasallam oo quraanka la baraa oo qofka dadnimadiisa waxa soo saaraysa waa diinta islaamka haduu qofku diin baranayn oo diin ku dhaqmayn oo diin lagu tarbiyadeynayn waxa la barayo waa habaan manthura ugu علومta maadiga adduunkana qofku uu ka heli karaa laga yaabo inuu faa'iido ka helo inuu ka faa'iideyna waa suuragal laakiin cilmi diin qofku haduu barto ma ba khasaarayaba qofkaasi adduunkan iyo aakhiraba si walba waa macaash marka nina adduunkan intuu joogay buu ehelkiisa ku dhex faraxsanaa ayuu ku iloobay aakhiradiisii mustaqbalkooda adduunyada sidoo dhista u lahaabo ayuu aakhiradoodina ku halmaamo ku iloobay nina adduunyada intii la joogay buu ehelkiisii isaguba xaq ilaahay u jeesteen dadna muuminku hadduu janno galana oo ehelkiisuna ay jannada la galaan hadduu isagu reerkiisa ka darajo sareeyo acmaasha uu qabanayay iyo dadaalka khayrka uu reerkiisa ku bixinayay ayaa ilaahay intuu ku karaameeyo ehelkiisana intuu loo soo qaado darajada jannada halka uu kaga jiro ayaa loo keenay quraanka ilaahay ku sheegay marka noloshan adduunyada ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu noo keenay inaan isaga ku raali gelino bas aakhiraduna waa meesha qofka muuminka lagu raali gelinayo jannadu waa meesha adiga lagu raali gelinayo wa fiiha ma tashtahihi al-anfus ba ilaahay waxa naftiinu ay doonto oo dhan ba ilaahay ayuu ku sheegay jannada inay yaalaan